ودول برواقة وآد ياد برواقة بدن dalxiis kana ku fiican dadkeeduna ay yihiin dad dhammaantood ku abtirsan diinta islaamka haddaba barwaaqadaas Soomaalidu ka faa'iideysata iyo dhaqankii reer guuraanimada ee ku habboonaay muddada badan ay ku soo dhaqmaysay ee ahaa aqal Soomaaliga dhaqashada xoolaha fardaha iyo dhammaan barwaaqada ka soo baxda dhulka Soomaaliya oo dhan oo isugu jira dhaqashada geela dhaqashada ariga idaha lo'da digaaga iyo intiisa soo raacdaba falashada beeraha kalluunka haddaba sidaas aawadeed Soomaaliya waa dhul barwaaqa u baahan laakiin waxa ka baa waxa weeye hoggaan wanaagsan ee madaxeed ayay u baahan tahay hoggaan dad madaxa oo hogaamiya oo sharaf leh oo barwaaqadaas ummadda ku hogaamiya u baahan yahay aroosku waxa weeye waa waxa ugu badan ay Soomaalidu ay maaragtay ay xafladaha ay u dhigaan iyo maaragtay isu imaatinka waana wax hiddo iyo dhaqan ay aad u jecel yihiin ummadda Soomaaliyeed